waxaa jiray nin buka oo ah lasaros reer baytaniya ee joogay dowladda maryan iyo walaasheed maarta. maryantaas waxay ahayd kii rabbiga cadar marisay oo cagihiisa timaheeda ku tirtirtay oo walaalkeed lasaros bukay. sidaa aawadeed walaalihii maryam bay rabbiga u direen iyagoo leh, sayidow ogow kii aad jeclayd waa bukaaye. laakiin ciise markuu taas maqlay wuxuu yidhi, bukaankanu kan dhimashada ma ahaa, laakiin waa ammaanta ilaah aawadeed in wiilka ilaah lagu ammaano. ciise ayaa jeclaa maarta iyo walaasheed iyo lasaros. sidaa aawadeed markuu maqlay inuu buko 2 maalmood oo kale ayuu meeshuu joogay iska sii joogay. markaas dabadeed ayuu xertii ku yidhi, yahuudiyaan haddana tagno. xertii waxay ku yidhaahdeen, macallimow, yuhuuddu waxay haddana doonayeen inay ku dhagxiyaan, oo waxaad mar kale u kacaysaa meeshaas? ciise ayaa ugu jawaabay, maalintu miyaanay 12 saacadood ahayn? qof hadduu maalinta socdoba turunturoodo, waayo wuxuu arkaa iftiinka dunida. laakiin qof hadduu habeenka socdo wuu turunturoodaa, waayo iftiinku kuma jiro isaga. meelahaas ayuu ku hadlay oo dabadeeto wuxuu ku yidhi iyaga, saaxiibka lasaros waa hurdaa, laakiin waan u tegayaa inaan soo toosiyo. sidaa daraaddeed xertii waxay ku yidhaahdeen, sayidow, hadduu hurdo wuu bogsoonayaa. ciise wuxuu ka hadlayay dhimashadiisa, iyaguse waxay u maleeyeen inuu ka hadlayo nasashada hurdada. ciise haddaba ayaa bayaan ugu yidhi, lasaros waa dhintay, anigu waa ku faraxsanaya aawadin inaan halkaas joogin si aad u rumaysataan, laakiin aanu tagno. sidaa aawadeed toomas kii didimos la ohan jiray wuxuu ku yidhi xertii la socotay, innaguna aan tagno si aynu ula dhimanno. haddaba markuu ciise yimid wuxuu ogaaday inuu 4 maalmood xabaasha ku jiray. haddana baytaniya waa u dhoweyd jerusalem, oo waxay u jirtay ilaa 15 istaadiyoon. yuhuud badan waxay u yimaadeen maarta iyo maryan inay walaalkooduma kaasiiyaan. maarta haddaba markay maqashay in ciise imaanayo ayay ka hor tagtay. maryase gurigay iska fadhiday. markaasaa maarta waxay ciise ku tiri, sayidow, haddaad halkan joogtid walaalkay muu dhinteen. hadda waxaan garanayaa in wax allo waxaad ilaah weydiisatid oo ku siinayo. markaasaa ciise wuxuu ku yidhi, walaalka waa sara kici doonaa. maartaa ku tidhi, waan garanayaa inuu kici doono wakhtiga sara kicidda ee maalinta u dambaysa. ciise ayaa ku yidhi, anigu waxaanahay sara kicidda iyo nolosha. kii i rumaystaa in kastoo uu dhinto wuu noolaan doonaa. kii kasta oo nooloo i rumaystaa weligii ma dhiman doono. waxaan ma rumaysan tahay? waxay ku tidhi, haa sayidow, waan rumaysnahay inaad tahay masiixa oo ah wiilka ilaah ee dunida iman lahaa. markay taas tidhi way tagtay oo hoos ahaan u soo yeedhay walaasheed maryam, oo waxay ku tidhi, macallinkii halkan buu joogaa, waana ku yeerayaa. iyaduna kolkay maqashay dhaqso bay u kacday oo u tagtay. ciise weli ma iman tuulada, laakiin wuxuu weli joogay meeshii maarta kaga hor tagtay. haddaba yuhuuddii iyada guriga la joogtay oo u tacsiyeynaysay markay arkeen maryam inay dhaqso u kacday oo baxday ayay raaceen, iyagoo u malaynaya inay xabaashii tegayso inay meeshaas ku bararato. haddaba maryam markay timid meeshii ciise joogay oo ay aragtay isaga, waxay ku dhacday cagihiisa iyadoo ku leh, sayidow, haddaad halkan joogtid walaalkay ma uu dhinteen. ciise haddaba markuu arkay iyadoo bararanaysa iyo yuhuuddii la socotay oo la bararanaysa ayuu ka qalbi xumaaday uuna murugooday. markaasuu yidhi, xaggee baad dhigteen? waxay ku yidhaahdeen, sayidow, kaalay arag. ciise waa ooyey. sidaa daraaddeed yuhuuddu waxay yidhaahdeen, bal eega siduu u jeclaa. qaarkoodse waxay yidhaahdeen, ninkan oo indhaha u furay kii indhaha la'aa miyuusan wax ka samayn karin
inuusan ninkaasu dhiman. sidaa daraaddeed ciise oo mar kale qalbi xumaaday ayaa xabaashii yimid. waxay ahayd god dhagax maana saarnaa. ciise ayaa yidhi, dhagaxa ka qaada. maarta oo ahayd kii dhintay walaashiis waxay ku tidhi, sayidow, hadda wuu urayaa, waayo 4 maalmood buu mootanaa. ciise wuxuu ku yidhi, miyaanan kugu odhan haddaad rumaysatid waxaad arki lahayd ammaanta ilaah? markaasay dhagaxii ka qaadeen. ciisena indhihiisuu kor u taagay oo yidhi, aabbow, waan kugu mahadnaqayaa inaad imaqashay. waan ogaa inaad mar kasta imaqasho, laakiin dadkan badan oo hareerahayga taagin aawadood ayaan taas u yidhi inay rumaystaan inaad adigu soo dirtay. markuu sidaas ku hadlay dabadeed wuxuu ku dhawaaqay cod weyn, lasarosow, soo baxa. markaasaa kii dhintay soo baxay, isagoo gacmaha iyo cagaha ay kafan kaga xidhan tahay, wejigana maro kaga xidhan tahay. markaasuu ciise wuxuu ku yidhi iyaga, fura oo daaya ha socdee.